بسم الله الرحمن الرحيم marka ugu horeysa waxaan soo dhaweynaya duqa degmada Gabiley waxaan jeedaa duqa degmada Gabiley agaasimaha inta genderka aan horeysayeen ayo malaha sababkan waa sabankii maxay ahaanay haweenka marka iyadoo oo waliba ay noo tahay aniga ay tahay laba munaasabadood khatro oo ah gabadha kaliya dalka Somaliland ka meeyara iyadoo ay waliba ay tahay maalintii ugu horeysay xafiiskayga ay tibaato soo booqato iyadoo oo hawl shaqo socota oo mashaariicda JPLG-ga oo ay hogaaminayso wasaaradda arrimaha gudaha agaasimaha gobolada iyo degmooyinka Maxamed Axmed xogayaha dawladda hoose isla la socda Xasan Raago isna la taliyaha wasiirka iyo dhammaan saraakiisha kale ee la socota marka ugu horeysa way soo dhaweynaya waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka macabada saxaafada runtii munaasabadan ama kulankan ma aha mid cusub waa mid degmooyinka oo dhan ka soo qabsoomay laba degmo ayaa la isku waadiyay Berbera iyo Hargeysa waxa lagu qabtay koogii Berbera Burco iyo Sheekh Yood weynana waxa lagu qabtay Burco Boorama iyo Gabileyna waxa lagu qabanayaa halkana lagu qabanayay maanta oo kulanka ka soconaya soo dhaweynta kadib ujeedada hawsha tan halka la isku yimi waxa weeye maadaama ay dawladaha hoose ka socdaan mashaariicda JPLG-ga ama maamul daadejinta iyo sida markaa hay'adaha nagala shaqeeyo ay UNDP ugu horeyso ay involved ugu yihiin in mar walba hawshii sideedii ma u socotaa maxaa ka qabsoomay maxaa ka soo baxay iyadoo kaashanaysa xudunta wasaaradda arrimaha gudaha oo ah ta howlgaraynaysa inay hawshani dhaqaaqdo iyo maanta waxaanu halkan isku weydaarsanay qodobo ay ka kooban yihiin maxaa ka soo noqday mashruuc maxay nii hirgalay maxaynu doonaynaa inaynu ku darno carqaladaha hor yaalla maxay sidee baynu uga baxaynaa yaa laga wada hadlayay oo ka wada hadlaynay iyadoo waliba Gabiley ay tahay degmo ugu dambeysay oo ku soo biirtay iyo sidii waliba Gabiley way aragnimo buuxda ay ugu heli lahayd waxyaalaha mashaariicda ka soo baxay iyo wixii qaladaad ka yimid sidii loo sixi lahaa sidii ay Gabiley uga faa'iideysan lahayd iyo sidii ay uga mid noqon lahayd imaka barbilowga mashaariicda JPLG-ga ee 2012 runtii hay'adaha nagala shaqeeya wasaaradda arrimaha gudaha iyo shaqaalaha kale hay'adaha kala gedisan ka kooban tahay mashruuca JPLG oo markii hore hawshiisa ku socotay barnaamijkiisu waa DDF ima kala loo bedelay DF oo inteeda badan imka ay maal gelinayso UNCDF Soomaaliya ay maal gelinayso fundingka badan iyadoo ay leedahay waxa lagu jira mashaariicdii 2011 oo dhamaanaysa iyo 2012 siday u socon lahaayeen waxaan u degdegaynaa sidaan u dardar gelinahayn inuu horumarin lahayn jeedada salka ku haysa in maamulka la dadejiyo decentralization kana loo horumariyo nuxurkii hadalka waxa dhameeyay maayirka Boorama runtii mashruucan shanta ku midoobeen ee la yiraahdo JPLG oo markii hore ka socday 6 degmo haddana ay ku soo biirtay sanadkan Gabiley si fiican uga warqaba lana bilaabay xubnihii ugu firfircoonaa ee mashruucaasi ka qayb qaatana kamid aha ayaa sheegay nuxurkii hadalka anigu waxaan ku soo dhaweynayaa in kormeerkeedana uu yahay midaan ku marayno todobada degmo ee mashruucan JPLG-ga oo ku salaysan maamul daadejinta iyo horumarinta degmooyinka dalka uu ka socdo haddii aan idin magac dhabo waxa weeyaan Oodweyne waxaan ka soo bilaabay bariga Burco Sheekh Berbera Hargeysa Gabiley iyo Boorama oo aynu maanta fadhino
مشروعنا ومشروع يكون مدورين شن هيدود وهيكمل تهاي هذا UNDP UNCDF UNICEF ILO UN Habitat waxaana lagu horumarinayaa degmooyinka dalka waxaanu bilaabmay 2008 fayskiisii hore 5 sano ayaa dhamaanaya hadda sanadkan aynu ku jirno 2012 kana waxaa bilaabmi doona fayskiisii labaad oo aanu haddaba ku jirno anagoo mar walba socdaalkan oo kala ku kala bixina degmooyinka oo mashruucu ka socdo wuxuu ku saabsan yahay si aan xogta dhabta u ogaan lahayn iyo carqaladaha noo taagan iyo fursadaha aanu haysano marka waxaan kulli ku soo dhaweyn doonaa maayirka degmada Gabiley oo ah maayir ay ku cusub tahay process-kan ama habkanu waanay kulli wixii ka baratay in sheegi doonta waana maayirka kaliya sidii maayirka hore sheegay ku jira muxuu ahay gender waxa way marka hore waxaan salaamayaa maayirka magaalada Boorama sidoo kale lagu soo dhaweeyay in agaasimaha waqtiga uu sameeyay مسؤوليته وزارة الفرق حسب مهمته هي شغالة درود الهوسة بورما دمانتي وحضرها هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل هذا البضل واضحين وأنا كل أصبنا مشروعا شدها يسكها عشرين إمك هي أنا بلابنا أنا بودنا عقله تلوجي كاهين بدت كجوهري لكن حركة إنه تبغى يرسيبني لكن بكون حنا سيبوناجا إن أنا كصوب الناس ما كان marka anagu wali wax hore kama nambaran imika horta la bilaabnaa maanta xogurursi ayaanu ku jirnay barsidii aanu halka ay gaareen anaguna aanu u soo gaari lahayn horumar sidii loo sameyn lahaa maamulka loo gaadhsiin lahaa kulay hawlaha sanimaadka ismaalay xogaa talaabo ku biir lahaa qolada maamulaysa shantan hay'ad isku yimid qolqoladeedii galbeedku anaga gamcaha haysan ee si bariguna gamcaha isku qabsado إلا جارسيو قبل هذا بريجنا وامد ورالين كسليسن ويمتى بورم يجيبلي وقو هالك كود شرية إن راس عنود يبرع عنا هالك كود شرية بنادي شعلان هاي بقى كل تاسو حنوانا كدر صدق قرشين أو سبعة شبر يجل بدو يسمعنا يعني قلبك كعموس سبر يبغى كوبينه ساسبا كل اللي هاي أنت سيد بيسوي دي سؤال